السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhow kanaalkeena isha ciyaaraha iyo muuqaal cusub oo ka tirsan taxanaheena Euro 2020 caawa marka saacada geeska Afrika ay ku beegan tahay 7 habeenimo waxa ciyaarta ugu horeysa ee wareega 16 ku dheeri doona garoonka Johan Cruyff ee Amsterdam labada xul ee Wales iyo Denmark. Wales ayaa ku soo baxay kaalinta labaad ee group A halka Denmarkna ayana ku soo dhameysteen kaalinta labaad ee group B. 5 sano kadib bandhigoodii wanaagsanaa ee koobka Euro 2016 markaasi oo ay gaareen semi-finalka, Wales ayaa fursad u haysta sameynta xusuuso kale oo qurux badan. Xulka Dragonska ayaa guuldarro hal iyo eber ah ka soo gaadhay xulka Talyaaniga ciyaartii ugu dambeysay groupkooda, hase yeeshee wax saas ah kama bedelan soo bixitaankooda wareegan. Ugu dambeyntii guusha 2-eberka ahayd ee ay ka gaareen xulka Turkiga ciyaartoodii labaad ayaa Wales ka caawiyay gaaritaanka wareega 16. tababaraha xulkan ee Beige ayaa wax ka bedel ku sameeyay xulkiisa kulankii Italy, taas oo keentay inay soo gaadho guuldaradii labaad ee 16 ciyaarood ee u dambeeyay. June 2019 ayaa ugu dambeysay in laga guuleysto xulkani Wales 2 kulan oo xiriir ah. Si kastaba xaalkooda Wales ayaa guuldareysatay 2 kulan ee abid ku ciyaareen magaalada Amsterdam sanadii 1988 iyo 2014. Taageerayaasha Wales ayaa kulankan iman doonin sababo la xiriira xadidaadaha COVID-19 kuwaas oo ka hor istaagay in gidaarka casi ay safraan, halka taageerayaasha Denmark loo ogol yahay in ay si aad ah u soo fadhiistaan, taasi oo noqon doonta faa'iido dheeraad ah. Denmark ayaa sidoo kale dunida inteeda kale aad looga taageeri doonaa shakil sababtoo ah dhacdadii kulankoodii koowaad ee ay la lahaayeen Finland. Muuqaalka Christian Eriksen oo ku dhex dhacay garoonka gudihiisa ayaa in badan ku sii jiri doona maanka kuwii daawanayay. Sidoo kale waxaan la ilaawi doonin in wax 2 saacadood ka yar ay dib u sii bilaabantay ciyaartii ay la lahaayeen Finland, taas oo keentay in looga adkaado 1 gool iyo waxba. Labahantii dhanka u tababaro Kasper Hulman ayaa sidoo kale kulankoodii labaad ee ay la lahaayeen Belgium looga adkaaday 2 gool iyo 1 koorinta aanay kulankoodii ugu dambeeyay 4 gool iyo 1 uga adkaan xulka Ruushka. tan ayaa Denmark ka yeeshay kuwii ugu horeeyay ee wareega 16 u gudba kadib markii laga adkaaday labadoodii kulan ee ugu horeeyay. Denmark ayaa markii ugu horeysay ka soo gudubtay wareega koowaad tan iyo 2004 markaas oo ay wareega rubuc dhamaadka iska xaadiriyeen. Denmark ayaa 3 kulan ee ay tartamada isaga hor yimaadeen Wales wada guuleysatay, inkasta oo kulankani uu yahay koodii ugu horeeyay ee tartan weyn ah. Wales ayaa u ka maqnaan doona Ambadu oo isagu kulankii u dambeeyay ka dhacs qaatay, laakiin tababara Beige ayaan wax dhaawac ah oo kale ama maqnaanshiyo kale ah la tacaalayn. Dhanka Denmark waxaa dabcan ka maqnaan doona Christian Eriksen kadib ku dhicitaankiisa garoonka 2 usbuuc ka hor. Isla sida Wales oo kale, Denmark ayaan yana wax dhaawac ama maqnaansho oo kale wajahaynin. Haddii aynu eegno shaxda macquulka ah inay ku soo kala bilowdaan labadan xul, Wales waxaa la filayaa inay ku soo bilowdaan xidigahan soo socda: Boortaha, Ward, difaaca Roberts, Mefam, Rodon iyo Davies. dhexda waxaa la filayaa inay ku soo bilowdaan 3 xidig ee kala ah James, Aaron Ramsey iyo Allen, halka weerarkan ay soo kala bilaaban doonaan xidigaha saddexda ah ee Morel, Gareth Bale iyo ciyaaryahan Moore. Denmark haddii aynu eegno ciyaaryahanada la filayaa inay ku soo bilaaban doonaan Boortaha, Schmeichel, difaaca Christensen, Char, Vestergaard iyo Fass, halka dhexda ay ku soo bilaaban doonaan sida la filayo xidigaha Højbjerg, Delaney iyo Mile, halka weerarkan ay soo kala bilaaban doonaan 3 xidig ee kala ah Braithwaite, Damsgaard iyo Paulson. asxaabta naga xidhan muuqaalkan ku saabsanaa kulanka caawa dhex mari doona labada xul ee Wales iyo Denmark ee bilaabi doona wareega 16 ee koobka Euro 2020. intan ayaynu ku soo gabagabaynaynaa. waa anigoo idin leh haddii ku cajabiyay fadlan like saar, sidoo kale la wadaag asxaabta kale, hana hilmaamin inaad subscribe gambeelka wada saartid kanaalkan si aynu u gaadhno ugu yaraan 1000 subscribe ee ugu horeeya. waa anigoo idin leh waana muuqaalkan kan xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.